الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدين سلامي ولا لهيغا خالقة قيمها بدن شرفت بدن دوني دافه هذا meel walba aad ku joogtiin waa walaashin Maryan Ruun channelka anaga daawanaysaan waa Maryan Ruun official waxa idin leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga hadii ay tahay markii kugu horeysay oo channelkayga aad soo booqatay subscribe dheh gambaleelkan on ka dhigo si uu ku soo gaaro wax walba aan soo galiyo insha Allah asxaabteeda hore ila joogteen waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo ku xirnaanta channelka videoga like gareeya share ku dhaha asxaabtiina commentigana waa xaqiina marka wixii tale iyo tusaale soo gudbiyo insha Allah asxaabteeda qaaliga ah maanta waxa idin wadaa hilib mandi ama laxmul mandi ya idin wadaa marka waxa weelkaas waxaan ku soo diyaarsaday wixii spices ahaa marka hore waxaan ku shubay maraq digaag waxaan kale ku daray wax yar oo huruudaan ku daray waxaan ku daray wax yariis oo xabaaji kaari ah waxaan ku daray wax yariis oo xabaajiga caadiga ah wax yariis oo huruud ah iyo waxaan ku daray toon yar aan soo tumay waxaan kale hadda ku daray cusbo waxaan kale ku daray laba qaando oo saliid ah marka intaas isku qasaya iyo jeex liin dhanaan aan ku daray liin dhanaanta waxa tasti fiican u yeelaysaa hilibka waana ciyowna way karinaysaa oo way kala gooynaysaa marka intii aan isku soo walaaqaya intaas weelka igu jirto markii hadda aan soo qasay oo maraq digaag adduunka wixii dhan aan isku soo dhalaaliyay waa kana hilibkeena maanta waxa waaye hilib lug ah waaye iyo wax yar oo sarar ah ama feer ah la socoto marka hadda waxaan sameeyay hilibkeena waa soo mindi aan ku soo dulduleeliyay si dhacaanka oo galgalo marka waa kaas hadda wixii waa u jeedin dulduleelada waxaas waaye mindi aan ku soo dulduleeyay aan jiq ku soo siiyay si oo dhacaanka gudaha oo u galo dhanaanka oo gudaha u galo maadaama hilibka la dubaayo marka waxaan dhahay in dhacaanka gudaha spiceskiisa gudaha galo hadii kale waxa waaye dhanaanka kor hilibka dhaxdana waxa waaye ma gaaray dhanaanki marka waa kaas hadda feerti iyo waxaan soo marinayaa ama sararti iyo waaye labadaas cadow ka kooban yahay marka hadda waxaan soo marinayaa spaceskeeni marka saliidan waxaan ugu daray biyo waa lagu qasi karaa laakiin saliida ka fiican saliida waxa waaye way shiilaysaa hilibka maadaama hilibka oo foorno la gelinayo oo wax biyo lagu karineen oo wax kale lagu sameyneen oo hadhow saliido kale oo aan lagu uumateyneen marka saliidaas waxay ka qayb qaadanaysaa hilibkaas inuu ku shiilmo oo ku gaduuto marka saxankii aan ku dubi lahaayeen soo diyaarsaday waxaan soo saaray warqada aluminiumka ama geesdiir qof walba soo u yaqaano iyo warqadi kale oo iyadana waxa oo loo isticmaalo foornada oo buskudki waxaas lagu dubto iyadana aan soo kor saaray marka hadda hilibkeeni labadii cad aan soo saaray waxaan rabaa inaan ku duubo marka hilibka lugta ahaay waa kaas hadda dhulka aan dhigay hadana geeskan waxaan ka dhigay sarartii aan ka dhigay wixii dhacaan oo ku soo harharay aan hadda sii marmarinaya waxaan kale geesaha ka dhigaya basal waaye basal aan soo fiiqay basal oo xogaa yar yar oo waaweyn aan ahayn oo iska dhexdhexaad ah waxaan ka soo fiiqay qobkii aan ka soo fiiqay geesii aan soo jaray waa soo nadiifiyay marka geesahan ka dhigaya waxaan rabaa hilibkaas inay ku uumtoodo basashu waa ogtihiin cuntada way macaanaysaa inay ku shiilmato marka geesaha markaan ka soo dhigay aad xogaa aad 5 xab camal oo basal aan isticmaalayaan geesaha dhan ka soo dhigay hadda markaan geesii ka soo dhigay oo dhacaankii wixii weelkii uu soo harharay dhan aan ku kor shubo waa kaas dhacaankiis waa u jeedin kulli waa ku soo wada shubay marka hadda waxaan sameynayaa waxaan korka aan uga fardhinayaa labado xabo heel caadi aan tunneen oo dhadhan ah labado xabo korka ugu soo fardhinayaa hilibku waxaan rabaa inuu ku huuro oo ku shiilmo caraftiis inay waxaan rabaa jismiga ee ka gasho hadda heelkii waa kaaseeti korka aan ugu soo fardhiyay waxaan kale hadana korka ugu soo fardhinayaa saddexdo jab oo kharfa ah waaye hilibka hadda markii la shiilay taa kharfaha iyo heelka waa lagu shiila karaa carafta maasha Allah maadaama oo xawaash toon ku jirto wax walba oo caraf ee lagu daray hadana hadii heelka iyo waxa uu ku dartid waxaan ku dhahay hilibka intii oo dabka oo saaran yahay aaba ka dharge caraftiisa marka waa kaas hadda markii aan wixiisa dhan u soo dhameystiray warqadii hadda korka ka saaraya aluminiumka intaan ku xiran warqadaas aan ku xiraaya warqada markaan ku xiro on geesaha ka geliyo oo geesaha dhan meel banaan ee jin oo warqadii hooseysay aan ku soo kor laabay hadan aluminium kale aan korka ka saaray waxa waa labada aluminium midka kore iyo midka hoose waxa u dhaxeeya laba warqadooda u dhaxeyso warqadaaseeti waxa waaye waa si huurinaysa aluminiumkana hilibka waa gubaya waa
shiilaya marka hadda waa kaas markii aan soo dhameeyay saxankiisaan soo saaray foornadii aan gelinaya foornada hadda markaan geliye kor iyo hoosaan ka shiday hilibkaana wuxuu foornada ku jiray 2 saacadood oo kaamil ah oo dabka ku jiray markoo dabka ku jiray 2 saac ee gab u dhahday daqiiqadna ma raacsiinin daqiiqadna ma ka jarin 2 saac oo buur oo ku jiray foornada kor iyo hoosna waa ka shidneed markii aan ka soo bixiyay waa kaas hilibkeena hadda waxaan ka soo fiiqayaa warqadii aan ka soo fiiqayaa woona kululya waa u jeedin sida qaaca ka baxaayo oo waxa waaye hilib maanta dhan la huurinayo oo foorno ku jiro waaye ma sahlan aan ku dhahay kuleelkiisa marka waa kaas markaan ka soo furay gees diirkii waa kaas wixii dhan waa isku muud basasha waa kaas noocaas ay ku soo baxday hadaa geesaha ka dhigay waxaan ku dhahay waa ku dhalaashay waxa hadda ka qarinayo waxa waa qaac waayo aluminiumkii markaan afka ka furay waxa waa qaaciya soo baxay waa kaas soo u qaacay waa u jeedin hilibkeena soo gaduutay meeshii sarartii iyo lafihii iyo hilibkii way kala dhaceen wixii dhan waa isku muudeen waxaan ku dhahay wax oo dhacaan hoos ma kala haweelkan marka hilibka ka soo bixi waa idin tusaaya marka saxankaana wax yar oo decoration oo basal iyo yaanyo simirsaan iyo waxaan ku soo diyaarsaday iyo ansalaato marka waxa waaye wax marka sameynaysid xoogaa shuutan in lagu daraa fiican marka hadeertan waa kaas hilibkeenan soo saaray saxankeeni waa kaas quruxda badan oo guduud waa kaas feerti waa u jeedin hilibkii wixii way kala dhacooyin waxaan ku dhahay hilibkii lugtan waxaan ku dhahay ما شاء الله نقضي وبسلادة 2 ساعة كامل oo foorno oo ku jiro waxaan ku dhahay hilibkaas waa la bacaari aan ku dhahay bacaariskii ahaay waa la bacaari ma sha Allah qaabkaas quruxda badan oo guduudka oo soo baxay guduudkaasna waxa ka qayb qaadanayo waxa waaye food colorkii aan ku daray iyo wax yar huruud aan ku daray marka waxay ka dhigayaan guduud oo qurux badan saliid waa kaas korkiisa dhan waa dhalaalooya waa u jeedin marka saas oo ugu qayb qaatay markii hilibka markii la shiilayo kar wax yariis food color ama wax yariis oo sacfaraan oo kale marka wax yar jak ku siisid ama huruud yar aa ku dartid waa kalarka ka qayb qaadanaya kalar macaan oo qurux badan kaas lafihi iyo waxaan ku dhahay hilibku way isdaayeen qurux badan oo soo baxay marka wax yariis oo kabsarna kora uu soo fafardhiyay ma sha Allah waa kana weelka aan ku dubin waa kaas marka hilibka ka soo qaaday waa u jeedin wax dheecaan ma lahan basashi waxaas ma ka muuqdo basashi waaye oo waxaan ku dhahay dheecaankeeda dhan la laqay oo hilibka oo laqay ma sha Allah idinkan waxa idin rajeenayaa inaa ka faa'iideysi doontaan ka faa'iidi doontaan oo saan u sameeysan doontiin idinkana baroobeeya ka warkeena insha Allah marka maanta walaashin Maryan waxay idinkuugu talagashay hilibkaas idinkuugu talagalay insha Allah fiidiyogeyga like gareey share ku dhaha asxaabtiina insha Allah waxa idin rajeenayaa khayr iyo caafimaad